بسم الله الرحمن الرحيم. ساعدة وحواية 2 AM oo maaragtay salaada subaxa wax yar ka dhiman tahay. Waxaan joogaa meeshii dadka ka safrayeen. Waxaan sagootinayaa caa'ila safrayso maanta marka terminal 2 maaragtay airportka Masar saanu u dhisan yahay terminal 2 giisa. waa kaas ma sha Allah tabarakallah. hadeerna waxaan sugna waxa waaye airportka New Muqdisho oo caalami inoo noqdo oo ma aragtay sidaan iyo si ka qurux badan in loo dhiso. fursadaha jiro waxaa ka mid ah hadeer in New Muqdisho airport share lagu darsani karo. waxaan u soo jeedinayaa Soomaalida inta Ilaahay wax siisay in ay share ku darsadaan. shareka maxaa la dhahaayay dhulkeenna waxaan ku quruxsanayno waaye. haddiina la dhacana waxa waaye annaka airportka inoo muhiim ah inna la dhacayana ilama aha laakiin waa wax dhici karto. laakiin ilaahaan ka magan galaynaa in ma aragtay airportka dadka maal gashanayo in la dhaco. saas darteeda waxaan ku boogaadinayaa Soomaalido idil in ay maal gashato ayagoo aaminayo dalkooda iyo ayagoo aaminayo madaxdooda. ilaahay waxaan ka baryaynaa madax fiican inuu dalka inoo keeno oo aan wax dhacaynin oo kitaabka maalinta ee ku dhaaranayaanna dhaarta kitaabka ee la maranayaan ee dhahayaan danta dalka iyo dadkan ma aragtay aan ay ku dhaaranayaan in ay ka dhabeeyaan. marka waa kaas anigoo idinka soo salaamayo Cairo International Airport Terminal 2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.